walaalayaal magacaygu waa Mugawa waxaan ahay doole u dhashay dalka Tanzania waxaan idin sheegaa inaan la mid ahayn dooliyada kale oo arki jirteen ee aan marka hore idinkaga warramo sidee noloshayda isu beddeshay muddo gaaban dhexdeeda waxaan shaqo ka helay marka hore kambani ku yaala dalka Belgium oo aan tababar ka qaatay sida miinooyinka loo soo saaro kadibna waa howlgalay waxaan kasoo shaqeeyay meelo badan laakiin dalka Cambodia ayaa waxaan hadda kasoo saaray miinooyin gaaraya ilaa 36 miino iyo 28 waxyaalo kale oo qaxay saad arkaysiin si fiican la ii dhaqaaleeyay anna si fiican aan u shaqeeyay inkastoo meelaha miinada ku jirto aan markii hore aad uga baqaayay inay igu qarxaan haddana ma dhihi karin oo waa shaqadii iigu horreysay ee aan mushaar ka qaato maalintaas sabul adagaa la isiiyey oo iligaa iga jabay laakiin waa iska adkaystay oo sii wata shaqadeeda horaa loo yiri nimaan shaqaysan shaa waa ka xaaraan niyadaydan iska dhistay maalinta anoo shaqada isaga jira aan la ii yeeray markaas anigoo aan malaysanayn la isiiyey biladda dahabiga ee PTSA waaw waxaan hadda noqday dooligii ugu horreeyay ee helay biladan waxaa keliya iga hor qaatay A laakiin anigaa ugu horreeyay dooli la siiyo waxay igu ahayd la yaab laakiin waxaa kasii darnayd gurigan weyn iyo swimmingpoolka arkaysiin aan la isiiyey intaas waxaa kasii daran laba baabuur mid Porsche aan aniga keliya wadanaayo iyo mid kale van oo xaaska iyo carruurta ku qaadi kara la isiiyey ka waran hee lacag badan iyadna la isiiyey oo kala xisaabina ay bisha marka waxaan idin sheegayaa haddii aad dadaasho waa gaaraysaa riyadaada biladan maanta la isiiyey waxay ii tahay sharaf weyn oo aan aniga keliya igu koobnayn ee waxa dooli ah oo qaaradda Afrika iyo qaaradaha kale ku noolba ay la qaybsanayaan hadday ahaan lahaayeen dooli guryeed ama dooliga duurjooga sababtoo ah weligeen bilad iska daaya aqoonsi xataa nalama siin jirin wax badanaa bisadaha ama mukulaalaha qofka sida u yaqaano nalaga hormariyey oo xaqeena nala duursiiyey waxaa maanta ilaahay mahadiis ah in xaqeena soo baxay oo naloo aqoonsaday inaan caqli iyo karti leenahay oo aan dalkeena iyo dadkeena wax u tari karno aniga Mugawa ahaan hadda waxaa aad aan ugu sii faraxsanahay in caalamka arkay inaan nahay nafleey aan kaalintooda laga maarmi karin oo muhiim ah sidaas daraaddeed waxaan asxaabta muuqaalkayga taqaano iyo kuwa aan aqoonin ee hadda i arkay waxaan idinka codsanayaa in maanta ka bacdi xuquuqdeena la ilaaliyo waxaan nahay xor oo haddaan rabno guryaha armaajiyaha dhexdooda iyo koomadiyayaasha inaan dhex degno haddaan rabno qashqashaad ma jirto meelaa la qashqashaadin waxaan kaloo codsanaynaa dooliyaasha walaalaheen ee qaxootiga ku ah caalamka inaan lagu xadgudbin ee la ilaaliyo xuquuqdooda iyo sharaftooda marka hadda aad iyo aad ugu mahadsantihiin aadaan idinkugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad farxadda iila qaybsateen anigana waxaan ballan qaadayaa inaan hawsha meesheedii kasii wado oo aan tago meelo kale oo miinooyinku aasan yihiin sida Soomaaliya si aan uga soo shaqeeyo oo dhulka uga soo nadiifiyo miinooyinka waa idinla soo socodsiinayaa hawshaas waxay ku dhammaato mahadsanidin nabadeey assalaamu calaykum